magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dagaalkii ka socday muddada wax xal ah waa loo waayay waxaana hadda socdo diyaar garow dagaal oo intii hore ka xoog badan labada dhinac ee ku dagaalamaya Laascaanood ciidanka militariga Somaliland iyo ciidamada huwanta ah ee dhufayska kaga jira Laascaanood ayaa hadda u bareeray wax walba oo dagaal lahaan jiray waxaana la iskuma hambayn dagaalka Laascaanoodna wuxuu soo gaaray meel qaraar oo xalkii duugtay lamana sugayo inay labada dhinac degdeg u wada hadlaan sidoo kale wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa shalay tagtay jiida hore ee taliska ugu weyn Somaliland ee Gooja Cadde halkaas oo ay geeyeen daawooyin hor leh iyo shaqaale caafimaad oo dheeraad ah booqashadan ay wasaaradda caafimaadka Somaliland ku timi jiida hore ee dagaalka ayaa lagu micneeyay u diyaar garow dagaal oo intii hore ka xoog badan iyo inay Somaliland markaan u bareeri doonto dagaalka Laascaanood kaasi oo ay markii hore si hoose u wajahaysay Somaliland kadib markii uu cadaadis xoog leh uga yimi dhinaca beesha caalamka Mareykanka iyo qaramada midoobay laakiinse tan iyo markii ay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland si cad ugu sheegtay Mareykanka inay ciidankii u tababaray dawladda federaalka Soomaaliya ay qayb ka mid ah ka dagaalamayaan Laascaanood laguna dilay xubno sare oo ka tirsan ciidanka danam ee Mareykanku kaalmeeyo magaalada Laascaanood waxay dawladda Mareykanku ka gaabsatay dagaalka Laascaanood waxaana qoraalka ay Somaliland ugu jawaabtay Mareykanka lagu tilmaamay midkii ugu adkaa ee lagu qoro luuqad diblomaasiyadeed oo adag USA-na loogu gardhigtay taasi oo Mareykanka ku khasabtay inuu ka gaabsado arrimaha ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda Somaliland ayaa lagu sheegay in dagaalka uu maamul goboleedka Puntland ka wado magaalada Laascaanood uu yahay mid ay ku doonayso inay ku samayso xuduud qabyaaladeed kaas oo saameyn ku yeelan doona xasiloonida iyo deganaanshaha geeska Afrika sidoo kale madaxda Puntland iyo odayaal reer Puntland ah ayaa marar kala duwan Somaliland ugu baaqay inay isaga baxdo gobolka Sool oo ay ciidankeeda Somaliland geyso magaalada Og taasoo xaqiiqo ka dhigaysa eedda ay Somaliland u jeedisay Puntland ee ah inay Puntland abuurayso xuduud qabyaaladeed sidoo kale magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa buux dhaafiyay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ciidanka Puntland kuwaas oo hab qabaa'il ku tagayay magaalada Laascaanood sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhawaan ka hadlayay arrinta Laascaanood ayaa sheegay inay Puntland qasayso Laascaanood oo ay nabadda Laascaanood diidan tahay Puntland Muuse Biixi Cabdi wuxuu dawladda federaalka Soomaaliya hordhigay inaan xalka Laascaanood la heli doonin ilaa iyo inta ay Puntland qasayso isagoo dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay wax ka qabato Puntland maadaama ay Puntland ka tirsan tahay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale hadalkan ka soo baxay Somaliland ayaa ku khasbaya dawladda federaalka Soomaaliya inay indhaha ku hayso Puntland cadaadisna saarto intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan oo aan ku soo koobaynay wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool